dadweynaha ku dhaqan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa maanta waxay dhaliilo u soo jeediyeen guddiga komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland ayagoona ku sababeeyay inaanay guddiga komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland ay gabi ahaanba ka gaabiyeen xilkii loo igmaday isla markaasna ay u hayeen bulshada Soomaaliland. Haddaba dadweynaha ku dhaqan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa intii aanu kula dhex jirnay mikrofoonka ayaa waxaanu ka malqaynay erayo ay ku diidan yihiin komishanka doorashooyinka Soomaaliland waxaana ka mid ah hadaladooda iyagoo ka hadlaya arrintaasi sida tani. waxaa jirtay muddooyinkii ugu dambeeyay labadii sano ugu dambeeyay komishanka cabashooyin ayaa ka soo baxaya dalka. komishankuna waxa weeyaan institution qaran weeyaan, waa national commission weeyaan for election oo qaabisha qaranka horumarinta doorashooyinka inuu isbedel nidaamsan u keeno. cabashooyinkaas waxay ku salaysan yihiin in dadweynihii cabasho badan ka soo jeedinayaan kagana soo horjeedaan waxyaabo fara badan hadday noqoto dibudhac xagga identity kaararka doorashooyinka lagu gelayo national ID-ga marka si fudud aanay ku jirin xumaan iyo qallafsanaan iyo maamul diid iyo dangarasho la'aan iyo waxaan jecel lahay inaynu si hufan wax isugu sheegno. idinku ma tihin dee golihii fulinta ma tihin laakiin institution dalka ka dhisan baa tihin marka waxaan rajaynayaa inay isbeddel keentaan fayow oo dadku ay ku horumaraan. dadku doorasho waa doonayaan, nabadgelyo waa doonayaan, duntooda waa yaqaanaan, dalku waa xasiloon yahay. ka dhiganina hay'ad aad gaar u leedihiin oo idinku hawlo gaara doorashooyinka loogu talagalay doorasho xad iyo xalaal ay dadku u qabtaan way ka gaabiyeen shaqadu. waxaan leeyahay dadka si fiican ugu adeegaan dalka. anigu magacaygu yahay xasan cabdi cali waxaan halkan ka cadeynayaa in komishanka qaranka xilkii loo qabsaday muddadii loogu talagalay ay ka gaabsadeen. sidaa daraaddeed waxaan leenahay ka dambeeyna xilligii taniyo cidilaa jira waxa weeye maanta dalkeena gaar ahaan mudan maanta Axmed Maxamed Siidaayo komishan bay soo dooratay. komishankii ay soo dooratay xil ayay qaadeen oo shicibkii iyo dadkii ummadii loo qaaday inay qabtaan. maanta waxay qabteen habeeraatay komishanka qaranka waayo komishankii waa la doortay ilaa maanta intii laga soo wareegay sanad dhow bay gaadhaysaa waqtigii ay la doortay komishanka wax allaale tallaabo ay qabtay ma jirto. laakiin komishanka qaranka waxaan leenahay shaqada dadka ka habsaaminna haddaydaan shaqada qabanayn dad qabanaya ayaan dooranaynaa xilkan loo dhiga. magacayga ku bilaabaya waxaan magacaygu weeyaan waa Gamaal Afiire. haddaan ka hadlo arrinta komishanka qaranka Soomaaliland, komishanku waxaa la yidhaha hal maxaygii lahaa dabada haya ma kacdo. komishanka dabada waxaa haya xukuumadda, dowladda dabada haysa iyadaa majoritigii leh. komishanku 5 xubnood bay leeyihiin dowladdu leedahay, marka iyadaa diidan inay saxeexdo xeerkii xilligii la ansixinayay doorashada. komishanka iyadaa dabada haysa. waxaanu leenahay madaxweyne cod baad ku fuushay, waa lagu doortay, doorashada xilligeedii qabo, komishankana la shaqee adiga xusbigaaga. wassalaamu calaykum. komishanka maxaad ka walaalahay? komishanka waxa leeyahay komishanow waxa ummadii masiirkii ummadda haysa 7 xubnood baa dalka oo dhan deegaya. cidna idinku ha jeclaysanna walaa mucaarad walaa guurti walaa dawladda aayihiina iyo aayaha dalka iyo dadka ka taliya. si kastaba ha ahaatee maaha markii ugu horreysay dhaliilo noocan oo kale ah ay u soo jeediyeen bulshada ku dhaqan gobolka Togdheer guddiga komishanka qaranka Soomaaliland. waa Maxamed Cali Axmed Kaabe, wararka telefishinka caalamiga ee Somali News, magaalada Burco.